الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leeyahay meesha waxa ka dhacay oo magaalada Burco jooga waxaan magaalada Burco lagu wada joogaynin waxa ka taagan dilku laba nooc u dhacaa mid waxa la yiraahdaa eebo midna asmaa tiyo asmaaga lagu dagaalamayo ayaa ka taagan qofka maskaxdiisa la kasbayo lagu shaqaysanayo la sheegayo in la leeyahay wallahi sida ilaahay dadka u leeyana ku yeelan waxa la leeyahay anigu magaalada ma degani madrasada uga furan cudurkan isaga ahi muu ooli jirin dhexdeena oo dadka reer waqooyiga ahi ma ilahan jirin laakiin dad meel ka yimaado oo aanu dadka timaadagta u badin ayaa lahaan jiray dadkii waxay samaysteen macluumaado iyo madrasado ay dadka ku tababaraan shilkii ugu dambeeyay wuxuu igu dhacay aniga oo ah Bashiir Maxamed Nuux walaalkii Xuseen Maxamed Nuux hanti uu noogu hayay 10 dhaxlay oo aan wada leenahay oo nooc kasta leh hanti aanu ku qiyaasi karo ilaa dhowr boqol oo kun oo dollar baa imka naga maqan muddadii dambe waxa xisaaban loo diiday nin xanuunsanaya oo maskaxdiisa la kasbay oo aan caadi ahayn sida marka ay tahay wixii cadayma ah waqtigooda la sugaynaa haddii maamul dawladeed tahay iyo haddii maamul shariicad tahayba waxaanu ka hadlaynaa aafadan magaalada lagu wada ooli maayo dalkana lagu ooli maayo wixii la qariyana qurun baa ku jira Burco dhami waxay sheegaysaa in ka badan 30 ama 40 dukaan iyo meheradadood rag baa jira badan oo istoogtay rag badan baa jiro badan oo ka horeeyay Xuseen Maxamed Nuux oo isdilay rag badan baa jiro guryahoodii dab uu lagu shidayo oo ku gubanayo warku way wada ogyihiin reer Burco marka ay saas tahay waxa wadana waxa weeyaan waxaan diinta islaamka ahayn marka maamulka dawladda waxaan leeyahay oo madaxweynuhu ka yahay ama dalkii diinta lagu soo celiyo oo dadka waxaan qabta iyo waxaan ku jira cid gaara iyo dambe baaris gaar ah loo soo diro dadkan oo waa la wada helayaa sidii wax loo baari jiray loo baaro ama dadku diin la'aanta ha u wada baxo oo cilmigan la isu barto oo mid walba midka kale ha ku isticmaalo oo difaac la isu galo dalkuna ha ku baabao diintana cidii ka mas'uula ee uu ka yahay hoggaanka dalku ayaa ka mas'uula dalka diinteedana iyada la weydiinaya wixii qalloocdan iyada la weydiinaya waxaan leeyahay maamulka dawladda oo madaxweynuhu ka yahay Muuse Biixi Cabdi golihiisa wasiirada wasaaradda cadaaladda iyo in alla intii culimo ah ee diinaha shariicada laabtooda ay diinta islaamku degan tahay arintaasi ma arin lagu dhaqmayo ma aha xamxamna ma aha waa arin cadaan ah oo la cadeynayo kaleer loo keenayo kiiska hordhaciisi annagoo hantaan sheeganayna boqolaal kun gaadhayso oo aanan 16 sanadood ninkaasi noo diidanaan meesha loo xisaabiyo haddana waxa dhacday iminka in oo aanu soo gudbinay qaybtii ugu horeyso hordhaca qaybta hordhaca aanu gudbinay waa 20 kun ehel maanu ahayn shurug maanu ahayn saaxiib maanu ahayn qaraabo maanu ahayn in ka badan 7 jeer baan marna dhaarin marna heliisa uga dacwoonay waxaan leenahay hay'adaha baaristuna si sharci ah oo wanaagsan oo diinta waafaqsan hana loogu baadho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaanu halkan isugu nimid oo aanu ka hadlaynaa masiibo ballaaran oo runtii masiibo qaran ah oo ka jirta gobolkan Togdheer oo tii u dambeysay ay dhacday daraato kuna dhacday marxuum la yiraahdo Xuseen Maxamed Nuux masiibadaas oo ah waxaan dalka hore uga jirin oo ku soo kordhay oo muddooyinkan ba aad loo hadal hayay oo dadyow badan iyo meherado badan ku dhacday masiibadaas oo ah sixir arintaasu magaalada Burco waxay ku noqotay arin caam ah oo ballaaran oo meelo badan ka dhacday waxaanu leenahay arintaasu waa masiibo qaran gurmad qaran bay u baahan tahay diinta islaamka dawladda cadaaladda nabadgelyada iyo ciidamada baarista iyo booliiska intaba waxaanu leenahay si degdeg ah
sidii wax looga qaban lahaa arrintaa wax kaleba ha la dhigo xabadda waa la arkaa waa la iska eegaa dagaalka waa la yaqaan wixii la yaqaanayba waxoodaa lagu akhriyi jiray waxaan la aqoon baa soo baxay dalka iyo dadka iyo dunidu waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah waxaanu leenahay hadday dawlad tahay hadday culimada tahay hadday caqliga iyo maskaxda oo shaqeeya tahay xaaladaasu mid loo adkaysanayo iyo mid la sugi karayo midnaba maaha qayla dhaandheer oo dhan walba ah ayaannu ka fidinaynaa arrintaa waxaannu leenahay ha la kaco ha la gurmado wax ha la baadho ajaanibka iyo dadka aan caadiga ahayn iyo dhulal la tilmaamayo iyo iskuulle la leeyahayba waa lagu bartaa oo maatada iyo makastaa la barayaa la leeyahay wax badan baa jira dalkan dib ha loo eego oo hoosa loo eego oo dadku dantooda hoose ha eegaan waxaannu leenahay dawladda maanta joogta dalka ee muuse biixi cabdi hogaamiye gudoomiye madaxweynaha u yahay gurmad degdega oo dhan walba oo wax walba la adeegsanayo ha la qaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan ahay caaqil xirsi xuseen faarax halkan waxaan ugu soo gudbinayaa xukuumadda Soomaaliland dhammaan madaxweynaha hay'adaha garsoorka tan nabadgelyada shil ka jira gobolkan Togdheer gaar ahaan degmada Burco kaasoo muddo dhaweyta lagu soo kordhay iminka waqtigan aynu joogno arrintaa waxaa lagu kalifay waxaa lagu dhacay laba dil oo dadka noocaas aanu ka soo sheekayn doonaa ay noo geysteen waa dadka sirxaya oo maalkooda shubanaya qofkana intay diiqad geliyaan ugu hanjabaya waxaa haddaanad soo shubin laftaannu kaa qabanayna marxuum la yidhaahdo xuseen maxamed nuux ayay ku isticmaaleen falsafadda noocaas ee jinkaa la adeegsanayo waanu u dhintay maalkii iyo naftii albeerkan weynu haystay muddo ilaa 13 sannadood ah intaa lacagtaa way ka gurayeen waanaannu daba soconnaa waxaannu hay-adaha u sheegaynaa nabadgelyada iyo kuwa cadaaladda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya muuse biixi cabdi arrintaa iyadahay way ku jirtaa magaalada Burco waana milcaamaday leedahay dadka sida dadban u dilaya ee maalkooda qaadanaya waxaannu leenahay haddaan ahay caaqil xirsi xuseen oo beesha aan caaqilka u ahay ninkaas uu ka mid yahay marxuumkaahi war arrintaana laga soo gaadho oo ha la baadho oo dadka naftooda ku weeraraya maalkooda ha laga safeeyo magaalada Burco halkan waxaan kala hadlayaa dhammaan hay-adaha dawliga ah hay-adaha nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi culimo awdiinka wasaaradda diinta iyo waqaafta mas'uuliyiinta gobolka haddii aanu nahay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco sanadahan dambe waxaana degay wax aan dhaqan loo lahayn oo dadka reer waqooyiga aanay aqoonin hase yeeshee dadkii dhaqan ka yaqaanay ay noola yimaadeen oo ay ku adeegsadeen dadka iyagii ay subareen inta ku shaqaysanaysaana waa inta aan islaamnimada iyo diinta islaamkaba ka fog waxa xaafadaha Burco ka jira iyo magaalada Burco gudaheeda dhibaatooyin aad u fara badan oo qofka bini'aadmiga ah uu iska arkaa xabadda lagu ridayo ee cadawga ku soo socda ee dilaya laakiin qofka bini'aadanka ah wax loo adeegsanayo isagun baa og ka loo adeegsanayo baa oge ka bini'aadanka ku xigay walaalkii la dhashay ma oga war haddaan nahay bulshadii reer Burco waxaana lagu mariyay sixir iyo balaayo la soo adeegsanayo oo qofka bini'aadanka maskaxdiisa lagu qabsanayo oo la kala shubataysanayo oo maalkiisa iyo naftiisa lagu qaatay kiisaska ugu dambeeyay waxa ka dhacay Burco xaafadda afkooyi mid maaha oo laba maaha oo saddex maaha oo afar maaha oo shan maaha reeraha dahabkoodii baa laga rartay dukaanaha lacagtii taaliba la waayay dad ganacsado yar oo miskiin oo meel meherad yar ku iibsanaya wuxuu hayay wixii uu haystay laga qaatay kiiska u dambeeyay ee dilkii wuxuu ku dhacay xuseen maxamed nuux oo haya hotel nuux afgooye muddo 13 sanadood adduunka waa la shubanayay
reer maxamed nuux oo dhan baa xoolaha lahaa isagaa mas-uul uga ahaa sidii loo shubanayay isagiina message baa loo diray lagu dilay dawladda waxaanu leenahay waxaa wax ka qabta haddii kale dee ha laysu caddaysto xabad bay tegaysaa wallaahi xabad bay tegaysaa ha laysu fasaxo oo ha laysu adeegsado sixir iyo xabadba waxaanu leenahay dawladda waxaan wax laga qabto yaa ilaahii ummaddii islaamka ahayd way qaylinaysaa waa ha laysu guntado waxaan dhaqankan ma lihin dhaqankani koonfur buu nagaga yimi dadka iyagii lagu mari yaa ilaahay dad islaam oo waxaan laysu soo gurmado waxna laga qabto oo hay'adaha dawladdu naga qabtaan